munaasabadan quruxda badan oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada dhalinyarada iyo kuwa hooyooyinka odayaasha golaha dhaqanka qaar ka mid ah culamaa udiinka deegaanka siyaasiyiin iyo sidoo kale marti sharaf lagu casuumay iyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta ujeedka qabanqaabada xafladani waxa uu ahaa ansixinta in ka badan 40 xubnood oo ka mid ah xildhibaanada loo sameeyay maamulka galgaduud sare oo muddooyinka ugu dambeeyay qabanqaabadiisa iyo waliba hawlihiisa ay ka socdeen waqooyiga gobolka galgaduud waxaana munaasabadan lagu ansixinayay baarlamaanka galgaduud sare uu yeelanayo loo soo igmaday isla markaasina goobjoog ka ahaa oo ayagu qalinka ku duugay inta badan odayaasha golaha dhaqanka iyo waliba guurtada ay ka go'do talada deegaanku kuwaas oo codeer ku ansixiyay kuna aqbalay baarlamaanka uu yeelanayay maamulka galgaduud sare ee laga hirgeliyay waqooyiga gobolka galgaduud gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta beeraha deegaanka waqooyiga gobolka galgaduud hareeri xasan barre oo ugu horreyntii madaha furay munaasabadani ayaa halkaas ka hadlay guusha ka dhacday halkan oo ay guuleysatay galgaduud sare ayagoo baarlamaankii galgaduud sare state ay ansixiyeen odayaasha guurtida iyo ugaasku hogaaminaya intaa ka bacdi baarlamaankii la dhisay oo 45 ahaa waxaa sharcigu yahay inta loo samaynayo oo loo dooranayo gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa hogaaminaya ninka ugu daaweyn sida ku taala sharciga baarlamaanka iyo dastuurka nabadon xasan cilmi jaamac iyo sidoo kale nabadon jaamac shira oo ka mid ahaa guurtidii maanta qalinka ku duugtay ansixinta baarlamaankan ayaa halkaasi ka hadlay sidoo kalena sheegay in maamulkan uu yahay mid loo dhan yahay oo aan loo kala harin marka waxaa laydinka rabaa galguduud sare kuwa soo qabanqaabiyey iyo kuwa ka soo qayb galay oo xafladdan iiga muuqanaya oo bulshada qaybooda ka kooban aad iyo aad bay ii dhiirageliyeen 14 boqolkana waa ku salaamayaa garabkoodana allaha galo anuguna waa soo dhawaynaya waxaan ka ballan qaadayaa inaan ku shaqeeyo shakhsiyadayda iyo magaca galguduud sare iyo sharafta ummaddu ay leedahay sababtu waxa weeye haddii aan ummadda sharaf weydo oo ay magac weydo oo taariikh ay weydo aduguna wax taariikhu aad yeelan karaa ma jiro ma raacayno urur aan raacayno oo kale ma jiro sufa kuuna leeyahay ma raacayno galmudug ma raacayno madax bannaan dhisanaynaa adduunweynahana waa u sheegaynaa sidoo kale qaar ka mid ah dadkii maanta ka soo qaybgalay munaasabadan oo ay ka mid ahaayeen ururada hooyooyinka iyo kuwa dhalinyarada iyo sidoo kale caqligii maanta ka soo qaybgalay munaasabadan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay gabagabadii munaasabadda ayaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey ugaaska beelaha waqooyiga gobolka galgaduud ugaas axmed barre cali oo isagu ah hoggaanka ama isinka ugu sarreeya beelaha waqooyiga gobolka galgaduud ayaa isna qalinka ku duugay soo dhaweeyey baarlamaankani ay kala bilaabeen in ay samaystaan maamul goboleed ayagu hogaaminahayaan dantoodana ku hogaaminahayaan waa ilaahay mahadiis waxaan leeyahay marka koowaad baarlamaankii la soo doortay waa aan ansixiyey haddaan ahay ugaas mahad xasan diini